sidee ayuu dal yar ku yaala bariga dhexe oo markii la asaasay ahaa waddan cusub oo wajahay dagaalo iyo caqabado badan ugu bedelay mid ka mid ah dalalka ugu saameynta badan dhinaca amniga, tiknoolajiyadda iyo dhaqaalaha? Maxay ahayd awooddii ka dambeysay isbeddelkaas? Ma ahayn hal arrin oo keliya, balse waxay ahayd isku dar dhowr tiir oo waaweyn: qorshe amni oo muddo dheer socday, horumar cilmiyadeed, maalgashi tiknoolaji, iyo nidaam dhaqaale oo ku dhisan hal abuur. Taariikhda Israa'iil waxay muujinaysaa sida qaran yar uu isku dayi karo inuu dhiso awood casri ah isagoo adeegsanayo cilmi, waxbarasho, iyo qorsheyn istiraatiiji ah. Muuqaalkani waxaan ku eegi doonnaa 3 tiir oo ugu waaweyn ee qaabeeyey awoodda Israa'iil: nukliyeerka, tiknoolajiyadda, iyo dhaqaalaha. Waxaan sidoo kale fahmi doonnaa sida arrimaha ay u saameeyaan gobolka Bariga Dhexe iyo doorka Israa'iil ee siyaasadda caalamka. Waa qaybteennii 6aad ee taxanaheena aynu ku eegaynay taariikhda Yahuudda. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Mid ka mid ah dhinacyada ugu dooda badan ee taariikhda casriga ah ee Israa'iil waa barnaamijka nukliyeerka. Bilowgii fikradda horumarinta awoodda nukliyeerka wuxuu ku xirnaa xaalad amni ee dalkaasi kadib dagaaladii isdaba joogga ahaa ee ka dhacay gobolka. Qaar ka mid ah hogaamiyaashii Israa'iil waxay aaminsanaayeen in cilmi baarista nukliyeerku ay siin karto awood istiraatiiji ah oo mustaqbalka muhiim noqon karta. Sannadadii 1950meeyadii iyo 1960meeyadii, Israa'iil waxay bilowday inay horumariso cilmi baarista nukliyeerka iyadoo kaashanaysa iskaashi caalami oo xilligaas jiray. Ujeedooyinka la sheegay waxay ku jireen dhinacyada sayniska, tamarta, iyo cilmi baarista. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijkani wuxuu noqday mid si weyn loola xiriiriyo arrimaha amniga iyo awoodda militariga. Israa'iil waxay muddo dheer qaadaysay siyaasadda loo yaqaano hubanti la'aanta nukliyeerka, taas oo micnaheedu yahay in aysan si rasmi ah u xaqiijin ama u beenin inay leedahay hub nukliyeer ah. Siyaasaddan waxay ka dhigtay arrin nukliyeer Israa'iil mid ka mid ah mawduucyada ugu badan ee laga doodo Bariga Dhexe. Dhinaca kale, dalal badan oo gobolka ah ayaa u arkay arrintani inay beddeshay isku dheelitirka awoodda. Israa'iil waxay u aragtay awoodda istiraatiijiga ah ee qayb ka ah qorshaheeda difaaca qarankeeda. Arrinta nukliyeerka ayaa sidaas ku noqotay qayb ka mid ah sawirka guud ee awoodda Israa'iil, laakiin awooddaasi kuma eka hubka ama amni oo keliya, sababtoo ah dhinac kale oo muhiim ah ayaa ahaa xarun gaar ah oo noqotay astaanta mid ka mid ah doodaha cilmiga. Bartamaha nukliyeerka Israa'iil waa xarunta Dimona. Xaruntani oo ku taalla koonfurta dalka Israa'iil ayaa la dhisay intii lagu guda jiray 1960meeyadii. Markii la aasaasay, waxaa lagu sheegay inay ahayd xarun cilmi baaris nukliyeer, laakiin waxyaalaha qarsoodiga ee ku hareeraysanaa xaruntani ayaa sababay in dowladdu iyo hay-ado caalami ah ay su'aal ka keenaan ujeeddada dhabta ah. Dimona waxay noqotay meel astaan u ah dowladda istiraatiijiga ee Israa'iil. Sababtu waxay ahayd in xaruntan lagu xiriiriyey suurtagalnimada in Israa'iil ay leedahay awoodda nukliyeerka ee aan si rasmi ah loo shaacin. Doodaha caalamiga ah waxay inta badan ku wareegayaan 2 arrin. Midda koowaad waxay ahayd daahfurnaanta barnaamijkan, midda labaadna waxay ahayd saameynta ay ku yeelan karto amniga gobolka. Qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe waxay sheegeen in awooddaasi ay keentay tamar amni oo cusub. Dhanka kale, Israa'iil waxay sii waday siyaasaddeeda ah inay si cad uga hadlin awooddeeda nukliyeerka. Sidaas daraaddeed, Dimona waxay noqotay mid ka mid ah xarumaha ugu badan ee lagu xuso marka laga hadlayo awoodda Israa'iil. Laakiin awoodda casriga ah ee Israa'iil ma aysan ku dhisman keliya dhinaca militariga. Waxaa jira dhinacyo kaleeto oo si weyn u kobcay dhanka tiknoolajiyadda. Sannadihii u dambeeyey, Israa'iil waxay noqotay mid ka mid ah xarumaha tiknoolajiyadeed ee dunida. Sababta arrintan ka dambeysay ma ahayn hal dhinac, balse waxay ahayd isku dar waxbarasho, cilmi baaris, iyo maalgelin joogto ah. Mid ka mid ah meelaha Israa'iil sumcadda ku yeelatay waa tiknoolajiyadda, amniga, iyo saybarka. Shirkado iyo khubaro ka tirsan dalkaasi waxay horumariyeen xalalka la xiriira amniga dijitaalka ah, xogta, iyo nidaamyada casriga ah. Sidoo kale, dhinaca caafimaadka, Israa'iil waxay ka samaysay horumar ku saabsan qalabka caafimaadka, cilmi baarista caafimaadka, iyo xalal tiknoolaji ah oo loo adeegsado daryeelka bukaanada. Beeraha ayaa sidoo kale noqday meel muhiim ah maadaama Israa'iil ay leedahay dhul qallalan iyo biyo xadidan. Waxaa la sameeyey
farsamooyin la xiriira waraabka casriga ah, maareynta biyaha iyo wax soo saarka beeraha. Jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarista ayaa door weyn ka ciyaaray arrintan. Waxbarashada sare iyo cilmi baaristu waxay noqdeen saldhigga lagu kobciyo fikradaha cusub iyo shirkado tiknoolaji ah. Tiknoolajiyadan ayaa markaas saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalka, taas oo horseeday in shirkado badan iyo maalgashi caalami ah ay soo jiitaan. Dhaqaalaha Israa'iil wuxuu soo maray isbeddello waaweyn. Bilowgii dhaqaaluhu wuxuu si weyn ugu tiirsanaa beeraha, dhismaha dalka iyo adeegyada asaasiga ah, laakiin waqti kadib dhaqaalaha wuxuu u wareegay dhinaca aqoonta, cilmi baarista iyo tiknoolajiyadda. Mid ka mid ah waxyaabaha lagu yaqaano dhaqaalaha Israa'iil waa qaybta shirkadaha cusub ee tiknoolajiyadda, gaar ahaan kuwa dijitaalka ah. Dal yar oo dadkiisu kooban yihiin ayaa noqday meel ay ka soo baxaan shirkado badan oo hal abuur leh. Qaybaha sida softwareska, cyberska, qalabka caafimaadka iyo tiknoolajiyadda beeraha ayaa noqday kuwa muhiimka ah. Maalgashiga gudaha iyo kan dibadda ayaa qayb ka qaatay kobaca shirkadaha. Sidoo kale, xiriirka ganacsi ee caalamiga ah ayaa ka caawiyay inay suuqyo badan hesho. Sababta dal yar uu u yeeshay dhaqaale saameyn leh waxay ku xirneed dhowr arrimood oo xooggan: waxbarasho, khibrad farsamo, iyo awoodda loo leeyahay in fikrad cilmiyeed loo beddelo shirkad ganacsi. Marka la isu geeyo dhammaan dhinacyada, waxaa muuqata in guusha tiknoolajiyadda iyo dhaqaalaha Israa'iil aysan ka dhalanin hal arrin. Waxay ahayd natiijada dhinacyo isku dhafan. Waxbarashada ayaa ahayd tiirka muhiimka ah. Jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarista waxay abuureen dad xirfad leh oo ka shaqeeya sayniska iyo tiknoolajiyadda. Maalgelinta cilmi baarista ayaa sidoo kale door weyn ka ciyaartay. Dalkaas wuxuu muddo dheer xoogga saarayay in aqoonta loo beddelo xalal la isticmaali karo. Sidoo kale, dhanka ganacsiga iyo hal abuurka ayaa dhiirigeliyay in fikrado cusub loo rogo. Shirkado, ciidanka iyo waaxaha amniga ayaa iyaguna bixiyay tababaro farsamo iyo khibrado ay dad badani markii dambe u adeegsadeen dhinaca ganacsiga iyo tiknoolajiyadda. Marka la isku daro waxbarashada, cilmi baarista, ganacsi iyo qorshen istiraatiiji ah, waxaa samaysmay awood casri ah oo ka baxsan cabirka juqraafiyeed ee dalka. Marka la eego taariikhda Israa'iil, nuclearka, tiknoolajiyadda iyo dhaqaaluhu waxay noqdeen saddex tiir oo waaweyn oo qaabeeyay awoodda dalkaasi. Nuclearka wuxuu qayb ka noqday sawir amni iyo istiraatiijiyadda qaranka. Daimona waxay noqotay astaan ku saabsan doodaha awoodda amniga ee gobolka. Tiknoolajiyaddu waxay Israa'iil siisay awood dhaqaale, mid cilmiyeed oo caalami ah. Dhaqaaluhuna wuxuu isku beddelay mid ku dhisan aqoon, hal abuur iyo ganacsi. Si kastaba ha ahaatee, awooddaasi waxay ku dhex jirtaa gobol weli ay ka jiraan khilaafyo siyaasadeed. Mustaqbalka Bariga Dhexe wuxuu ku xirnaan doonaa sida dalalka gobolka ay uga shaqeeyaan amniga, horumarka iyo xallinta khilaafka. Halkaas ayaynu ka sii gelaynaa qaybteennii ugu dambeysay ee taxanahan Israa'iil iyo Falastiinta maanta, xaaladda hadda jirta iyo mustaqbalka. Qaybtaas waxaan ku eegi doonaa xaaladda maanta taagan, khilaafka sii socda iyo su'aasha ugu weyn ee mustaqbalka: sidee ayuu u ekaan doonaa xiriirka Israa'iil iyo Falastiin sanadada soo socda? Ha moogaan daawade, mahadsanidin.